السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. in badan oo inaga midi waxay had iyo jeer ka cawdaan dhabar xanuun, lafa xanuun iyo xanuun ay ka dareemayaan kala goysyada jidhka ama meelaha laabalaabatooyinka ah ee jidhka. inta badanna xanuunada noocana waxay dadku aad uga cawdaan markay dadku waaweynaadaan, iyadoo dadka qaarkoodna markay xanuun dareemaan ay isticmaalaan kiniinada xanuun biyayaasha ah. marka haddaba laga yimaado in kiniinada xanuun biyayaashii ay muddo kooban qofka xanuunka ilowsiiyaan, inta badan xanuunkii qofka kama tago. haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa qaab fudud oo dabiici ah oo insha allahu tacaala aad meesha kaga saari karto dhabar xanuunka, lafa xanuunka iyo xanuunada inta badan aad ka dareentay kala goysyada ama laablaabatooyinka jidhka. waana qaab la tijaabiyey oo aan wax dhiba keenahayn ama wax dhibi aanay ka daba imanahayn. si aynu haddaba qaabkaa u samayno, waxaynu u baahannahay 7 xabo oo timira iyo waxoogaa ka mid a midhaha shanfaxda ama xabatu rashaad, kolba sidaad u taqaano. kadibna waxaynu samaynaynaa in 7dii xabee timirta ahaa mid kasta aynu kala jeexno oo aynu ka saarno lafta dhexda ugu jirta. markaynu 7dii xaba mid kasta kala jeexno, mid kastana aynu ka saarno lafta dhexda ugu jirta, waxaynu soo qaadaynaa midhihii shanfaxda oo aynu daqiijinay. kadibna 7dii xabee timirta ahaa mid kasta waxaynu dhexda kaga shubaynaa waxoogaa yar oo ka mid a midhaha shanfaxda. si kale haddaynu u dhignana, halkii aynu ka saarnay lafta timirta ayuunbaynu gelinaynaa waxoogaa yar oo ka mid a midhaha shanfaxda oo aynu daqiijinay. 7dii xabee timirta ahaa markaynu mid kasta kala jeexno, mid kastana ka saarno laftii dhexda ugu jirtay, sidoo kalena halkii aynu lafta timirta ka saarnay aynu gelino waxoogaa ka mid a midhaha shanfaxda oo aynu daqiijinay. intaa kadibna waxaynu cunaynaa 7dii xabee timirta ahaa ee mid kasta aynu ku darnay waxoogaa ka mid a midhaha shanfaxda. xilliga ugu fiican ee la cunaana waa subaxda hore quraacda ka hor, ugu yaraan 1 saac ama 2 saac. waxaanaynu sidaa ku wadaynaa 1 wiig oo xidhiidha ama 7 cisho. 7 cisho kadibna insha allahu tacaala sidaana waxaad kaga takhallusi kartaa xanuunadii aad ka dareemaysay dhabarka, lafaha iyo sidoo kale laablaabatooyinka jidhka.